waa taariikhdii Khabib wuxuu dhashay 1988 gaar ahaan wuxuu ku dhashay dalka Ruushka wuxuuna ku barbaaray tuulo la yiraahdo Sildi. waa wiil rabay inuu xaqiijiyo waxa laabtiisa ku jira isagoo 9 jir ah ayuuna bilaabay in uu training ku sameeyo ama uu la lagdamo xawayaanada qaarkood. waa qof uu Ilaahay ku manaystay deganaan iyo caqli iyo iimaanba. Everything God gave me. You become champion, this is not everything. You have to be greatest outside too. Like, I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. I'll tell you some booze at parties. I never drink. You're mad backwards. Khabib, assalamu alaikum, and Conor, congrats on Proper 12. You cannot say salam alaikum and congrats about whiskey. Nobody take this title before is with Muslim has like more than billion people, you know. When come Ramadan, this is everything for me. I don't think about fight because I believe in one God. This is my religion. Religion for me number one. Sport is not for me number one. Khabib ayaa su'aal la weydiiyey waxayna u dhacayso sida tan. Hambalyo Khabib, waxaad ku guuleysatay biladii, laakiin aadaan uga xunnahay wixii dhacay xalay. waxaad ka booday meesha. ma noo sheegi kartaa sababta kugu galabtay inaad boodid? Khabib ayaa ku bilaabay jawaabta sida tan. What's up guys, sidee tihiin? marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan idhaahdo iga raali noqda. waan ka xumahay wixii dhacay. waan ogahay tan inaysan xaggayga ahayn. tani xaggayga ma ahayn. waxaan ahay qof bilaadan ah. ma aana fahmin sababtay dadka uga hadlayaan stagekan ka booday. asaga ka warrama wuxuu ka hadlay diinteeda, wuxuu ka hadlay waddankeyga, wuxuu ka hadlay aabahayga, wuxuu noogu yimid baska, wuxuu jajabiyey baska, wuxuu la dagaalamay dad meesha joogay. ka warrama isaga. anigu ma garan kara sababtay dadka uga hadlayaan booditaanka stagekan ka booday. aabahay wuxuu isoo baray qaabka sida dadka loo cisay, wuxuuna ii dhihi jiray cisay dadka oo xushmay. waxaan joogay California aniga iyo tiimkeena 7 sano waxaan training ku qaadanaya halkaas. asxaabteedii iyo tiimkeyga iyo dadka kale way yaqaanaan qofkan anigu ahay. Conor asagoo meesha ku dabaaldegaya qamrina meesha ku cabaya ayaa wariyaasha mid ka mid ah dabaaldeg kula sameeyay. isla markiina ayuu su'aal weydiiyey Khabib kuna yiri assalaamu calaykum Khabib. su'aalna weydiiyey Khabib oo xanaaqsan ayaa ku jawaabay sida tan. assalaamu calaykum ma dhihi kartid adigoo ku dabaaldegaya qamriga. Khabib ayaa hadda ka hor iyadoo Ramadaan soo dhow yahay qof kale lagu aadiyay kulanka ciyaartaas ayuuna joojiyey wuxuuna u hadlay sida tan. haddii uu Ramadaan yimaado, Ramadaan wuxuu yahay wax walba kama fakaraya dagaalka. waxaan leeyahay hal ilaah, diinteedu waa hal, nambarka koowaad ayana ii tahay, ciyaartu iimaha nambarka koowaad. alxamdulillaah, farxad ayay ii tahay dhammaan miidiyaha inay hadal hayaan. Conor ayaa wuxuu sawir la galay Putin. wax yar ka hor ayuu Putin isoo wacay wuxuuna ii sheegay inuu ku faraxsan yahay guusheeda. uuna ila dabaaldegay wuxuuna ii sheegay inay la mid tahay isagoo guulaystay. waan idiin sheegay guys dhammaantiin, farxad ayay ii tahay midaas. ujeedkayga idil wuxuu ahaa 6 Oktoobar inaan bedelo waxa meesha ka socda. alxamdulillaah, waan ku guulaystay waana wengareeyey.